dal jasiiradeedka saxaraha ku yaal wadanyaraha qaniga ah ee xuduudda dowlad ee Sacuudiga dhinaca galbeed uga yaala qaaradda Aasiya ee saaran gacanka Bershiya. Kani waa qadar oo aynu muuqan kugula wadaagayno 8 xaqiiqo oo ku dahsoon kuwa oo ay maangal tahay inaadan ogaal u lahayn. Inta aanan kula wadaagin 8 xaqiiqo aan dib kuugu yar celiyo taariikhda dhow ee dalkan. qarnigii 20aad bilowgiisii ayaa la yagleelay wadankan. asaasihiisuna waa Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani. wuxuuna ahaa hogaankii ugu horeeyay ee guriga Thani qasriga looga taliyo dalkan. welina muran ayaa ka taagan kan dalkani labada mid noqonayo boqortooyo ama dimuqraadi. qadar waxaa muddo badan gumaysanayay Ingiriiska ilaa ay xornimo ka qaadatay sanadkii 1971. qarinimo ayaa lagu tixgeliyaa dalkan yar kaasoo uu asaas u yahay gaaska dabiiciga ah, taa oo ka dhigaysa dalka saddexaad ee awoodiisa dhaqaale ay arrintan ku tiirsan tahay. dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 2.7 milyan oo qof, balse aan dib ugu noqono 8 xaqiiqo ee halkaas ku dahsoon. 1. dalkan waxaa ku yaal garoonka 9aad ee adduunka ugu weyn, Hamad International Airport oo ku yaala caasimadda Dawxa ee dalkaas. waxaa si rasmi ah loo furay 2014 goortaas oo la xiray garoonkii qadiimiga ahaa ee caasimadda. waxaana garoonkani tirada dhoofayaasha uu qaabilo sanadkii lagu qiyaasay 50 milyan oo qof, taas oo ka dhigaysa garoonka labaad ee gobolka ugu weyn marka laga yimaado kan Dubai. waxaana la sheegaa in garoonkan oo ah mid casri ah lagu dhisay lacag gaaraysa 17 bilyan oo dollar, waxaana ku yaal runwayga ama jidka diyaaraduhu ku ordaan ee adduunka ugu dheer. 2. qadar waa dalka ugu shidaalka jaban ama raqiisan adduunka. dalkani waa mid ka mid ah wadamada hogaaminaya soo saarista gaaska dabiiciga ah. sidaas darteed muwaadiniinta qadar waxay ku raaxaysanayaan qiimaha ugu jaban ee abid shidaal lagu iibsado adduunka. waxaana la sheegaa in halka litir uu joogo wax ka yar 57 senti, taas oo ah kala bar qiimaha halka litir uu ka joogo dalka Mareykanka. 3. sharciyada adag ee dharxirashada. dalka qadar waxa uu leeyahay sharciyo adag oo la xiriira dhinaca labiska muwaadiniinta, ka oo loo sameeyay xeerar ilaaliya. dalkani guud ahaan waa mid muslim ah, waxaana xeerarku ragga waajib uga dhigayaan inay xirtaan khamiis cad iyo cigaal, halka dumarkuna ay xirtaan cabaayad dheer oo madow. xitaa haddaad tahay dalxiise lagama ogola dalkan inaad dhar gaagaaban ku xirato. 4. ninka ugu maalqabeensan dalkan. Hamad bin Khalifa Al Thani ayaa ah shakhsiga ugu taajirsan wadankan, ka oo raasumaalkiisa lagu qiyaaso 800 milyan oo dollar. hantidaasna waxaa la sheegaa inuu kasbaday intii uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaas, booskaas oo dhaxal siiyay inuu go'aan fiican ku yeesho dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee dalkan marka laga reebo dhaqaalaha ka soo gala saliidda dabiiciga ah. sidoo kale ninkani waxa uu hanti badan ka sameeyay shirkad uu leeyahay oo ku taal dalka South Africa, taa oo lagu magacaabo Aphrodite. waxa uu sidoo kale ninkani marar kala duwan isku dayay inuu iibsado kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Rangers FC, taa oo ah calaamad kale oo tusaysa hantida badan ee uu haysto. 5. duulaankii Sacuudi Carabiya ee ka dhanka ahaa dalkan. qadar waa mid si joogto ah uga cabsi qabta duulaan ay kala kulanto dariskeeda. dalalka Bahrain iyo qadar waxa wada gumaystay dalka Boortaqiiska bilowgii 1520 ka hor intii aan boqortooyadii Cusmaaniyiintu dalalkan ka kicin gumaystihii Portugal. intaas wixii ka dambeeyay dalkan yari waxa uu marar badan hujuun dagaal kala kulmay dalalka dariska la ah ee Carbeed. 1787 ayuu weerar toos ah Sacuudigu ku qaaday qadar, ka oo ay dhimasho iyo qaxba ka dhaxleen qadariyiintu. waqti aan fogeyna Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa la wariyay inay qorsheeyeen weerar ka dhana qadar, ka oo aan weli dhicin. 6. qadar waa mid ka mid ah dalalka adduunka ugu ammaanka badan. xogtan oo laga soo xigtay Global Crime Index Statistics, qadar waa dalka ugu dambiyada yar gudaha bariga dhexe, halka ay adduunkan uga jirto kaalinta 7aad ee dalalka aysan ka dhicin dambiyadu. tani waa natiijada amniga aadka loo xoojiyay ee dalkan, waxaana yaab leh in qaar ka mid ah quwadaha adduunka sida Mareykanka iyo Ingiriisku ay ku kala jiraan kaalimaha 73aad iyo 63aad ee dalalka dambiyada dagaalku ay ka dhacaan. waxaynuna oran karnaa marka laga reebo masiibooyinka dabiiciga ah, qadar waa dalka adduunka ugu nabadda badan. 7. qadar waa dalka adduunka ugu qanisan. inagoo xiganayna natiijada ka soo baxday cilmi baaris ay samaysay hay'adda International Monetary Fund, taa oo muujisay in dalkani uu yahay wadanka adduunka ugu qanisan. sidaan horey u soo sheegnay, dadka dalkani waa 2.7 milyan oo qof, waxaana dhaqaalaha sanadlaha ah ee qof walba oo muwaadiniinta qadar ka mid ah lagu qiyaasay 125,000 oo dollar, taa oo la filayo inay sii badan karto sanadaha dhow.
qaninimada dalkani inteeda badan waxa ay ku tiirsan tahay dakhliga shidaalka. sidoo kale dalkani waxa uu hantida ka sameeyay qaar ka mid ah duulimaadyada adduunka ugu fiican oo uu leeyahay. inkastoo qalalaasa diblomaasiyadeed ay haystaan dalkan yar, haddana taasi kama joojin inuu yahay mid ka mid ah dalalka adduunka ugu dhismayaasha dhaadheer. 8. martigelinta Qatar ee koobka adduunka 2022. dalkani waxa uu abaalmarin u helay inuu martigeliyo koobka adduunka ee 2022 kaasoo goor horeba daljasiiradeedkani bilaabay inuu isu diyaariyo oo yagleelo ilaa 7 garoon kubadeed oo caalami ah. inkastoo dhaleecayn badan uu la kulmay tan iyo intii uu mashaariicda dhismaha garoomada bilaabay, taasoo la xiriirta habka ay ula dhaqmeen ajaanibta ka shaqaynaysa mashaariicdaas iyo qaar ka mid ah maalgeliyayaasha tartanka oo sheegay in cimilada kulul ee dalkaasi ay dhibi doonto ciyaartooyda iyo taageerayaasha halkaasi tegi doona. haddana Qatar waa dal carbeedkii ugu horeeyay ee FIFA u dooratay martigelinta tartankan caalamiga ah.